dhinaca kale warbixin ka soo baxday dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in duqaynta jilib ka dhacday lagu dilay mid ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab. ibraahim oo muqdisho ku sugan ayaa xogtii in u dambeysay inoo haya. ibraahim cabdiraxmaan cali dhimbiil warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya duqayn gelinkii dambe ee maanta ka dhacday beer ku taala duleedka magaalada jilib halkaasoo lagu dilay maamulihii shirkadda hormuud ee magaalada jilib maxamuud xaaji salaad sida uu b b c da u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan shirkadda hormuud oo aan goorsii horeysay taleefanka magaalada muqdisho aan kula hadlay laakiin laba war saxaafadeed oo isxigay oo kasoo kala baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka iyo taliska maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom labaduba waxay sheegeen in duqayn cirka ah oo galabta ka dhacday magaalada jilib lagu dilay mid ka mid ah saraakiisha mid ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab qofka la dilay magaciisa iyo waxa uu al-shabaab ka ahaa midna ma aanay sheegin. sidoo kale waxaa ku qornaa labada war saxaafadeed ee labada dhinac kasoo kala baxay in wax rayid ah oo weerarkaasi wax ku noqday aanay ogeyn. shabaab laftigooda way hadleen waxay sheegeen in duqaynta jilib ka dhacday gelinkii dambe ee maanta qof iyaga ka tirsan in aan lagu bartilmaameedsan islamarkaana qof iyaga ka tirsan in aanay wax dhibaato ahi kasoo gaarin. marka laga soo tago wararkaas iskhilaafsan ee kasoo baxaya jilib duqayntii ka dhacday waxaan ognahay waxa weeye in duqayntaasi qofka lagu dilay uu ahaa maxamuud xaaji siraad waa maxamuud xaaji salaad madaxii shirkadda hormuud ee magaalada jilib sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. ilaa hadda warkaas war dhaafsiisan oo aan cabdiraxmaan hayna ma jirto. duqaynta ayaa kordhaysay maalmihii ugu dambeysay shalay oo u dambeysay dajuma weerar xagga cirka ah oo maraykanka uu ka qaaday halkaasi waxa uu ku sheegay in 3 ka mid ah al-shabaab lagu dhaawacay halkaas laakiin bilihii ugu dambeeyayba waxa lasoo warinayay meelaha qaar in dad rayida ay ku dhinteen ama ay wax ku noqdeen iyadoo hay-adaha xuquuqda aadamaha gaar ahaan amnesty oo kale dhowr jeer hore ay maraykanka ku eedeysay in duqayntiisa xagga cirka ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay wax ku noqdeen dad rayid ah. kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed aadan oo inala socodsiinayay xogtii u dambeysay duqayn uu maraykanku ka geystay Soomaaliya.